okay inta hadii aad ku soo aragtay qaabka orbital loo isticmaalo marka 3D joogto elevationada qaabka kala tagi lahayd sidoo kalena qaabka isu saaran lahayd navigator kan toolbox kan waxyaabaha imika waxaan baran doonaa oo inuu si fiican u baran doonaa wall kan qaabku u shaqeeyo wall kan step by step intaynu u baahanay as a beginner markii aan step by step waxaan barbarano de koorsada kala tahay inoogu jirto YouTube-ka freega Bongolo design ayaad ku sii xigsiin doontaa sida marka taa dhamaysana waxaad ku sii xigsiin doontaa G+1 ama 2ga mid ku ahaaban xasuusanin YouTube-ka naga yaala mar hore ugu dambeysay actually YouTube-ka anoo booqda waxaan soo dhigay xitaa iloobi laakiin mid inuu yahay xasuusta G+1 inuu yahay u malaynaya ama u badinaya okay then wall kan soo qaadan doona tusaale ahaan wall markaad wall ka soo qaadato meel bad ka bilaabi kartaa meeshad ku istaajinaysid click ayaad dhihi kartaa marka adoo eegaya cabirkan kula socda tusaale ahaan cabirka kula socda cabirka kula socda imika haduu ku soo saari waayo bartaan tigta ka qaaday show height tracker-gaaga xagga aad socoto kolba angle kana tusaale ahaan imika hadaan angle geliyo waxaad aragtaa imika 45 ilaa meelaha geli gidaar aan sawray 45 laakiin gidaar 45 ugu talagelin marka cabirkaagana tusaale ahaan hadii 10 mitir rabto inta centimeter uu yahay 10 mitir waa 10 kun waxaan jeedaa 10 centimeter okay halkii mitir baa 100 centimeter marka kunkaas hada 10 mitir rabto imika tusaale ahaan xaggaas inaga saaray actually hadaan si fiican iska soo jeegarayno waxaan isticmaalayna unit ku yahay waa centimeter okay imika tusaale ahaan gidaarkii ku noqo wall sida loo dhigaleeyay waan soo aragnay xagana soo dhaqaaqay tusaale ahaan 1 mitir baa rabaa waa 100 centimeter hadaan rabo maxaan dhahay 10 mitirna xaweeyay 1 centimeter 1 centimeter waxa aragtaa inter markaan dhaho click baan dhihi hadana cabirkii baan qori oo 100 baan qori tusaale ahaan waa 1 mitir inter baan dhihi iga haraya marka waxaan rabaa tusaale ahaan cabirkii markaan qorto inuu iga harin oo guride tusaale ahaan zigzag oo kala dan sameysanayo ama angle ku jira waxyaabaha tusaale ahaan wall-kii baan ku dirjiidi bartaa arkisa bartaas geometry method kaas aan bedeli doonaa oo waxaan ku bedeli doonaa inaan daaqada inta taabto click dhaho ama click ku yara xaji markaan ku yara xaji isoo bixi doonto hadaan imika click bis iska dhaho kana click ima soo saaray wax kale to kaasan ku yara xajin click dabadeedna waxa ii soo saaraya kan oo maxaan dhahaa polyline oo kala taamala oo yani polyline kala isticmaalaya AutoCAD oo kala taa kan oo kala rectangle dad sameysanayso oo laba point u bad draw gareyn kan oo kala laba point iyo saddexaad bad draw gareyn kan oo kala taan inagu isticmaalayna si aynu si freedom oo isticmaali karno oo aynu nooga harin markaan enter dhaho cabirkii markaan geliyo tusaale ahaan click waan dhigi ka xaga soo qaad dabadeedna waxaad ku qortaa bal 1 mitir ku qor ama 10 mitir ku qor oo kuna 1 centimeter ay xagana 100 centimeter aan qoro xagana hadana iwad 100 centimeter ama 100 centimeter xagana iwad 500 oo centimeter okay nay sidan 100 centimeter waka dag kula soconaya marka aad xitaa si freedom aad cabro eegin yaad waxa sameyn kartaa inaad size ka waxaysan marka waxa aynu sameynaa 3D soo eegno aad aragtaa waxa sameeyay sameysmay zoom out orbit oo taabo meel iska qabso warwareej sidii aynu aragnay marka dad fahmi wada orbit qaabka uu wareejinaysid oo fresh ku tahay yani waxaan sameey inaad YouTube ka baadho oo orbit loo isticmaalo ma qof intuu isku dhaay actually meesha diganta iyo la joogtay asxaabtaada kulli qof ma archi kar garanaya isticmaal yaqaana orbit ka fariisi kolba wax yar iska fariisi wall kan fariisi wall kan markaad maxaad sameyn wall kan wada tijaabide waxaad sameyn tusaalahan wall kan kangal wuxuu sameeynaya eeg laba dhinac laba point oo kan oo kale waxaad sameyn kartaa inaad labadii dimension qorto tusaale qol yar waxaan rabnaa inaan sameeyno 5 by 5 waxaan baahnaa 500 haye hoos baan soo degi ana waxaan isticmaalaya keyboard-kayga arrowda down-ta ah 500 hadana waa 500 iyo 500 qor 5 mitir each side das 3D soo eego waxaad aragtaa inuu sayahay marka aad waxa laga baahan yahay inaad tusaalahaan aad wall-kii doorato oo kuwana eegto kuwana maxay yihiin waa circle maxay advance markaad noqotaad baran doontaa intaas ku filan ba intana ku filan kana isaguna macna kuma sameynayo saddexda inta dad aragto ina fuliba kaas aad isticmaalaysaa ay shirkada ugu horeysa waxaan sameynaa inaynu wall-kii maadaama dhamaynay waxaan dhahay qaabkii aad u draw garan lahayd inaynu ogaano wall-ka qaabkii cabiraadkiisa loo bedelaa nuucdiisa la kaanaysa
dherarkii joogiisa intuu noqonaya marka gurigii tusaale ahaan hadda dan elevationada tagna soo elevationka waxaad aragtaa in 3 mitir yahay 3 mitir oo noo qoonday kan nagana marka 3 mitir way isticmaalanaa marka advanced marka noqoto qaybta sida loo badbedeliyo waxyaabaha arki doontaa waxaan tagi doonaa ground tusaale ahaan gidaarkeena 3 mitir baan ka dhiganaa 3 mitir uga dhigano markaan gidaar ku dul jiido xagan waxay noo soo bixi doonaa default settinggiisa ama information tool dabeedna information toolkaas dad gidaarka ku dul jiido waxaad arki doontaa inuu qaybtan mitraadkii waxaad ka maamuli karto marka historiga aad ku link garaynayso 3 mitirtii xagga ku qornayd baad rabtaa hadaadan rabin not link dhe oo waxaad ka bedelaysid kaama ma garanayso soo sida loo bedelo waaye kanad bedeli kartaa not link ka dhig 3 mitir iyo 20 min ka dhigana tusaalahan 3 mitir 20 ka dhigan tahay elevation keena uu dhaafi doonaa xaggii cabirkii noo qorna 3 mitir inaan kacno xaggana waxaan rabnaa in dhumucdiisa wakaa in uu xabad blockade iyo noo kaado xabada blockade marka 30 cm ama 20 cm ama 18 cm 18 waan ka dhiganaa tusaalahan 18 cm ayaa badanka blockade-ga dhumucdiisa ay tahay thickness-kiisu ama 20 cm weeyaan aduu macal markaad isku darto talbiistiisa wixiisa 20 baa noqdo ama 25 baa noqdo dabeedna kaas baa ku taagnaa inaad ka dhigato marka waxaan kala waxba ka bedbedelin markaad advance noqotay baran doontaa history-ga joogto waa maxay waa home waa kaas yani home history-ga waa ground floor kiba joogtaa okay adan wax kale ka bedelin then tusaale ahaan kan zigzag aan soo dooran doonaa waxaanu sameynaa tusaale ahaan inaan saan dhahno waliba waxaan rabaa iminka inaan kugu sii daro adoo cusub line kaamido ma aragta soo banaanka kugu maro line kaamido hadhow colorka iyo range-gan ku shubayno line kaamido wuxuu matalayaa waa banaanka gidaarka banaankiisii oo hadhow colorka banaanka ugu talagashay gudaha ka soo maray si aad u bedesho bartaas flip dheh oo bedel dabeedna waka outside ka xagaas madow ku leeyahay inside kuna waka adi kaas harabnaa then tusaalahaan line kana soo kugu toosnaado in taa ku furan tahay snap guide hadii kale de meel aad wax toosan ma sawiraysid cabrada saado aragto kaas ku shinaado tracker kaas okay then waxaan rabnaa xagan qolkeeni iska sameysana waxaan rabnaa inuu noqdo 4 mitir inuu noqdo rabnaa 4 mitir waxaan qori doonaa centimeter ku qoraya 400 centimeter enter bandi igama harin dhinacna waxaan rabaa inuu 4 mitir noqdo okay dabeedna xagan oo kale imika 4 mitir ta kale kana kale aan isku xiray hadii aan tusaale ahaan qolkan soo eego waxaad aragtaa qolkayga inuu waxaysan yahay gidaarka marka intaynu ka bixin gidaarkan oo sheekadiisa duuban baa rabaa inaan dhameystiro gidaarkan waxaad aragtaa inuu concrete yahay colorka kuma caajibin inaad color ka bedeshaa rabtaa tusaale ahaan gidaarka ku noqo settingiisa model markaad ka sii tagto banaankiisa outside-ka edge-yadiisa maxbaa rabtaa inaad ku shubto inside-ka maxbaad ku rabtaa inaad ku shubto tii aad rabtaa inaad wax ku shubto tusaale ahaan banaankiisa rabaa inaad wax ku shubo colorkaad ku shubaysid muxuu noqonayaa bal colorkaas aan ka dhigto tusaale ahaan stucco red kaas aan ka dhigo tusaale ahaan okay banaanka bis hataan dadka soo bedelnay marka imika waxaynu ku kala ogaan doonaa meeshii markii dhaweyd madowga aanu banaanka marinaday banaanka ay noo martay oo xaqay noo tahay colorkeena casaankeena soo dooranayna wuxuu noqon doonaa banaankaas guduhu laakiin colorka concrete-ka ama shubka caadi iska ahaan doonaa okay waxaan soo bedelmiyaa click dheh حاجة مين اوكي دين اوكي كان اوكي بدل لان ستوكو بي فروف كاكاريك اما كلر بالكفي يعني ولا نشيل صراحة بينتي اوكلا بينتي غاز اوكلا تصالحان ليد بينتي لايت جري كاس بيل بلو غاز اوكي عنده هذا 3D كان ايرو وكا كلر كحضرتها انه يبدلني لكن كان هو ارج كان واس او انترنال ama gudihi weeyaan sayad colorkooda u bedeli kartaa yadna waliba imika gudaha ارجيada hortaan u ekeysino ارجيadii tusaalaan click ارجiski oo kale tusaalaan waa kan waxa ba rabaa tusaalaan in paint cadaan noqdaan saasaaban ugu talagalay tusaalaan xadaragtaa xagaas ay cadaan yihiin kii kolba gidaarkii ارجيade gidaarkan ba ارجو ahaa kana soo dhaafay midba midka kala soo dhaafay ama kana cadaan ama ka kala cadaan internal ka rabaa inaan bedelo click dheh ku dul jiid
waxaad activate garaysaa ama shidataa daaqada dabeedna waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan waxaad ka dhigtaa paintigan oo yellow ka dhig okay dhe dabeedna aan tusaale ahaan fiiriyo gudaha maxaad aragtaa inuu yellow yahay edgeski maxay yihiin cadaan kan kale muxuu yahay colorki kale soo doonana magaciisa inuu garanay inta waxa kugu dhan qaabkaad yaani maxaan ahay kala u bedel lahayd gidaarka gidaarkan tusaale ahaan inaan hal color ka dhigan rabaa waxaan sameyn karaa inaan hal mar link surface aan isku wada mid ka dhig tusaale ahaan hadaan 3D ga eego waxaad aragtaa in qaabka noqday laakiin qaabka ugu weyn tala gelinay aan waxaan ugu tala galay inaan saddex color oo kala duwan aan ka dhigo tusaale ahaan aan tan linkida ka qaado kana tusaale ahaan paint gaar ka dhigo okay kana paint gaar ka dhigo oo saa ka dhigan dark oo banaanka soo eego oo gudihiina madowga ay tahay kana sida uu yahay okay inta markaynu sameeyno wallki maxay noogu dhiman inaan iska fiirina rabaa wax kale ka bedeli karto heydkiisa dad rabto inaad sii dheerayso ad karaysaa waxaad ka bedeli dhararkiisa waa ka 320 waa 3 mitir iyo 20 cm bay ka dhigan tahay xagan kale waxba kuma mashquulayno wax kale u baahanay ma jirto kaliya waxaan rabnaa inaan hadaba south ka ku eegno wajahadiisi waxaad aragtaa in edge-gaas ka duwan yahay south north aye bari and east aad ka eegto dhammaan waxaad aragtaa colorkiina inuu qaato xagana waxaad aragtaa in floor walba groundigu uu heydkiisa 3 mitir yahay 3 mitirna aynu khilaafnay oo de inta 20 cm aynu khilaafnay hadaynu rabnay inaan wax ka bedelno tusaale ahaan 3 mitir iyo 3 mitir oo buuraan ka dhigno ama link aan ka dhigno tusaale ahaan steroid linked 3 mitir ba automatic nooga dhigi dabadeedna dad iminka elevation iska soo fiiriso waaba ku la siman yahayba intii aad ugu talagashay buu noqonayaa marka waxa xaga inoogu dhan wallka iyo barashadiisii waa as a beginner wallki waa ka adag tahay practice garaad oo gal xagan wada baar wada xume wada bedel wada eeg wax walba wax isbedelay si aad advance u noqoto barato waxan